بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالك السوء جوكتا صوماليا وحان الله في النمو عشان دبيش الجيده ومر روحدو إني عياسيسو واي هاي صومالي وحاي دولدنمو كسوء يسا أو دبيشتين كسوء يسانين هشيسي واي ولاشي لنا لطي إذا عبد الله فرماجي إيقابنا وقباء محاسكيسا سينا معالم وحابا السوق مينو صوبتا ليه مينو وحاوي قضبدا عاوان إذن هيا وحا كمدا رئيس الوزراء فرماجو قيرلاوي oo wadooyinka muqdisho loo xiray caawa dadkuna afur la'aan ku riday raiisul wasaaraha Itoobiya oo kala diray ama saraakiishii Tigreega iyo groupkii la shaqeynayay Minisrawi iyo Dasalla xilkii ka qaaday mahad celin gaar oo ku socoto habqlaysa group iyo dhalinyarada Soomaaliyeed oo Facebook ka suuliyay kooxdii waayahay waxa kale oo kamid ah caawa sheekooyinka adin hayay xiisaha badan wasiirkii ganacsiga Maxamed Cabdi Xayir Maareeye iyo ninka maamulaha ka ah dekedda Muqdisho ee lagu magacaabo Axmed Cabdullaahi Samow oo sameystay shirkado ama agensiyaal gaar ah sheekadan ha ka reebin mahad celinta ku socota caawa oo dhalinyarada soo halgantay fashilka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ninkii ugu qabyaalada badnaa Maryaxanka ayaa xaqiijiyay caawa inuusan ahayn Farmaajo nin u qalma inuu madaxweyne noqdo ra'iisul wasaarihiisana waxa uu yiri sidii sar dalka wuxuu ka degi waayay habargeed iyo abgaal ku Facebook ka caytamayna waa iyaga muuqaalkaas leen daawadsiinaya shirkadda isgaarsiinta Somtel adeegyada internetka ama fiber optica waa laga mamnuucay Jubbaland goolis ayaa loogu xiray Jubbaland iyo Galmudug iyo Koonfur Galbeed waa la sugayaa xaaladdu cirkaas ay maraysaa maamul goboleedka Farmaajo waa kala tageen habqlayso meelaha ka fiiriyo meelaha ka fiiriyo habqlaysoy waxaan ku bilaabayaa ninka wasiirka ganacsiga ka ah dawladda Farmaajo ama xukuumadda Farmaajo إلى محمد عبد الحير ماريه iyo ninka maamulaha ka ah dekedda la geeyay ee liyaado Axmed Cabdullaahi Samow baasha gaal jecel u dhashay ma taqaana labaduba heshiisay gaareen heshiiskaas wuxuu dhigayaa waxay dhaheen waa in guud ahaan shirkadaha beelaha hawiye dadka ganacsatada u dhashay ee dekedda ka xamaasho sabdiga oo berito ah ama hadda guud ahaan laga laabto shaqada ay ka qabtaan ma taqaana dekedda kadibna waa la heshiiyay afar agency waxa soo sameystay wasiir Maareeye laba agency waxa soo sameystay Samow isniintay shaqo bilaabayaan konteenarada saarayaan yasrada raaxo waa 1 minute 1 key that's habqlaysa group yahay la fuin ka dhigay maxaa laga qaban karaa marka xalay xalliga la Samow ninka la yiraahdo Axmed Cabdullaahi Samow nin baaga muddo ahaa maanta wuxuu dhistay guriyaha ugu badan ee degmooyinka Wadajir iyo Hodol marka wixii isniinta ka dambeeyay shirkadahoodii ayaa shaqo bilaabay agensiyaashoodii konteenar soo saarayaan qiyaanooyin kala sameeyay waxa kamid ah konteenarka soo saarayaan cashuur dhimis baa loo sameeyaa lacag yar baa lagu cashuurayaa kadibna shirkadaha loo soo saaray ayaa lacag badan laga qaadayaa marka agensiyaal business la sameystay caawana ra'iisul wasaarihii Farmaajo ninkii la Xasan Cali Khayre ayaa wuxuu mataqaana ku laabtay Muqdisho wadooyinka loo xiray dadka afur mehelin meel la mar lama arag qof kasta bacaaw afur la'aan ku dhacday marka maantana ninkii cuqdadii in laga guuleystay uu muujiyay kacdoonka shacabna uu mataqaana ka marqaati kacay cuqdadii reerka haysana maanta waa butaacay wuxuu yiri dadka arkaysiin Facebookada ka qaylaa kuwa dawladdiidka ah jira ta kasaro hooy habqlayso waa kaasa soo afku shalay anu ma dhihin afkiska waa kaas
عمال دونتان كوا بدن أو فيسبوك هذا وحكو قراءة إذا عندك هذا ويراد تلكين وحياي تلك سوماليا مالك نقول جولا وكوي سيدي لواتن سنة تلك الدنيا هذا يتمنى. وما الله يسوع معها وحوي إلهي حقي بك أهاتي إسقى أول له وحوي إلهي كمسة بديله بعشوا وحي مرة يساميش وجوه ماي وحا إلهي ما هذا سكاله إلهي ما هذا سكاله إن المطر كسب بالله تسيره مال سيد مال موت ومدحوينه يفرماجو إن أنت أكبنتي سه أكدري وانكبرنا بحي أو نقضي قفكي وهو الرئيس يفرماجو معارضة وحا إلهي مهديس إن ما أنت لو معارضة مجا سمال متقنا ما أنت ليش شيء كرينو سجن نيكي مريحان ugu qabyaalada badnaa beesha marيحان ninkii beesha marيحان ugu qabyaalada badnaa ee camleeday wada aha ee habeen maal farmaajo saan wadaha aswaan xulle intuu fiiriyay oo arkay wixii uu doqon yahay ayuu saanyiri saan wilsan xasuusiyaan dabcan madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Ahmed ayaa mar lagu wareeriyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo 6 bilood uu joogay marka madaxweyne Sheekh Shariif ayaa wuxuu yiri farmaajo waa la idin keenay ee meednaan aqoonina waxa kale uu yiri farmaajo wuxuu ku shaqeynaya siyaasad loo soo dhisay macnaha madaxweynaha amar buu qaadanayay amar buu fulinayay runtii maalintaas uma garaabin Sheekh Shariif waxaan lahaa nin karti leh micna leh ayuu rabaa inuu hoos u dhigo laakiinse maanta markaan arkay waxaan dareemayaa farmaajo inuu ku fiican yahay runtii madaxweynaha Soomaaliya in amar la siiyo oo la yiraahdo farmaajo waxaan qabo as ra'iisul wasaare kale waa perfect man laakiinse madaxweyne ismalihi waa ku fiican yahay sababtuna waxa weeye madaxweynaha waxaa laga rabaa inuu hoggaanka dalka kaliya uusan ku magacaawneen inuu siyaasadii iyo taladii iyo amarka waa isagu leeyahay sida hadda muuqata amarka waxa iska leh Fahad Yaasiin iyo ninka la yiraahdo Xasan Cali Khayre marka farmaajo wuxuu ku fiican yahay inuu noqdo ra'iisul wasaare runtii shaqana qaban lahaa runtii على حال وكاسا قال مريحان هدو صوتي اسكالو ولا صوت دادنيا حبق ليسو نينكي ugu dambeeyay waka ninkii ugu qabyaalada badnaana waka waxa way qof kasto oo mataqaana aslaha farmaajo ni fiicana wuxuu marqaati ka noqday inuu farmaajo qofkii raba ahayn inuu ahaanin la adeeginayo oo leeyahay waxa soo qabo oo saas ku fiican laakiin waxba aan qaban karin marka wariya dhamaantii waxa weeye baashu libintii guusha waaynu laacnay waana guuleysanay waxa weeye habeen iyo maalin waxaan u mahad celinayaa caaw history kaaday waa muddo ku soo jirnay dagaalka guulaan ka gaarnay waxa weeye shacabka Soomaaliyeed ayaan tusinay si geesinimo leh qofka uu yahay farmaajo iyo kuwa la shaqeeyahay inay beenaalayaal yihiin waxaynu ka soo bilownay wadooyin dambe lama xiri doono baabuurkan gadaal ka gelaya gurigii dowladda dhisayso qofkii qarax soo sheegay lacag baa la siinayaa warka noocaas ah waxa weeye dilka dhacaya ee lagu beegsanay dad gaar ah waa la socotaa walaalayaal dilka dhacaya ee lagu beegsanay dad gaar ah waa la socotaa Cabdiqaadir booska soo wacayo boosi boojayna على حال waxa weeye على حال waxaynu xaqiiqsanay inuu guusha laacay caawa historical waa haween taariikhiya waxaynu xaqiiqsanay boosaye Mr. Alan soo ogsanay live aan ku jira waa fiicana dadka ku maqlayaan live ku jirta waa kula socdaa live kaaga hadda soo gal waa soo afuray haye arkiisaasa ku soo wacay haye anigana ku soo wacay waxaan ku soo wacay bulshada Soomaaliyeed horta waxaan rabaa inaan ku kala qaadno laba arin oo aan bayaan ku soo saaro cawada waxa waaye Soomaali in muddo 30 sano dagaal iyo qabiil iyo isdil iyo muran ku jirto boqti waaye anaga waxa u baahanaa marka hogaamiyaal ama hogaamiye bulshada u sheegi kara
in xilligan lagu jiro xilli xun oo siyaasaddii dalka ay meel xun gaartay diyaarna u ah hogaamiyahaasi inuu soomaaliya kusoo celin karo waddadii guusha uma baahnin hogaamiye dhahaya aniga waddadii guusha haysanaa nabad iyo nololaa joognaa dadka ciyaar u maleeya ama asigaba qalbi caruur inuu isku yahay qalbi caruur iyo markuu hadla anigoo ah ra-iisul wasaarihii federaalka soomaaliya oo ka bilaaba horta yaa ku haysta kursiga ra-iisul wasaare inuu yahay iyo inuu horta wuxuu aniga ra-iisul wasaare iima ahe ra-iisul wasaare aniga waxaa ii ah ninka qirsan in ummadda soomaaliya dhiban tahay kursiga ra-iisul wasaarenimada uu halkan ugu soo fariistana raba inuu dadka ka samata bixiyo dhibaatada hadda ay ku jiraan maha ra-iisul wasaare feri hadda waxaan rabay qodobkan usoo laaban doonaahe nimankan nabad iyo nolol la baxa nabar iyo naxdin u naqaan anaga ummadda soomaaliya waxaa halkan baab uga jeedinayaa horena waa u sheegay adna halkan dadka ku daawanayo waxaa u sheegayaa wallahi billahi tallaahi xaqa inuu ama adduun adoo joogo ha lagugu ciqaabo haddaa xaq heshid ama adduunka ha lagugu ciqaabo ama aakhira ha lagugu ciqaabo dadka qabiilka ku taageersan wallahi waxaa u sheegayaa hadalkiina inuu yahay jees markaa nabad iyo nolol soo qortaan igama aha inaa ani mucaarad ahay oo daahir cali soo mucaaradana qadka kala hadlooyo ujeedku saas ma aha waxba waqtigaas iga dhumin saas laakiin soomaalinimo iyo islaamnimo waxaan kugu sheegaa haddii walaalkaa inta la dilo ama aabbaha la dilo video lasoo duubo nabad iyo nolol ma dhehaysa mar dambe laakiin inta soomaali kale inta la dilo nabad iyo nolol aad dhehaysid waa hadal jees ah ilaahayna wax ma ilaabo adduunka in lagaaga jeebo iyo in aakhira lagaaga jeebo labadaas midaa mutaysan doontaa wiil soomaaliyeed iyo wiilal soomaaliyeed iyo odayaal soomaaliyeed inta la dilay video laga duubta aad facebook kusoo qorta nabad iyo nolol ma ii sharaxi kartaa waxay nabad iyo nolol tahay waa jees qofood ramadaanka la dilaaba nabad iyo nolol ah ma in wiilasha soomaaliyeed video inta laga duubay dadkooda iyagoo dhafoorada ka duleelo ayaa nabad iyo nolol u taqaanaa ma waxaa ku dayta kheyre iyo farmaajo oo dadka ku jeesjeesaayo oo olole doorasho election inay ku jiraan u malaysaa waxaa kaloo jirta shacabka soomaaliya maanta in muqdisho dadka qurbaha joogay ku qabiilka ah farmaajo iyo kheyre lama hadlayo waxaan kala hadlaa dadka xamar joogay ayagaba dhibane xaqiiqdan hadda intaa hadlooyo oo dareemi kara waxaa ka hadlooyo fayr in 70 qofood la dilo oo si mission inta dagaal ku dhinteen kama hadlayo mission video laga duubo waa 70 qofood oo odagii ugu dambeeyay maalinta samatoonka nabadoonka ah la dilay in 70 qofood ramadaanka 20 cisho lagu dilo in marka al-mukarrami kaliya wadadaas ay dawlad ka taliso 17 degmo in halka wado marka al-mukarrama ay ka taliso in 70 qofood la dilo in lagu kor jeesjeeso in dadka isqabsada ama dhaxal ha isku qabsadaan ama muran kale ha isku qabsadaan ama diya kale ha isku qabsadaan tooro aadaan in wasiiradii Soomaaliya xildhibaanadii laga qaada cashuur baad ah toorowna cashuurtu dhiibaan in shaqaalaha dawladda cashuur tooro geeyaan haddaad nabad iyo nolol u taqaano waxaa taa qabyaaladiista xun ansa dawladda waa taageeri lahaa hadday qiran lahaayeen dhibkan kana fikiri lahaayeen sida looga samata bixi lahaa dhibaatadan iyo mucjisadan haddii laakiin iyagiina ay taagan yihiin nabad iyo nololaan nahay oo marka al-mukarrama keligeed nabad iyo nolol tahay labada qabiil ay ka dhasheen kheyre iyo farmaajona ku taageersan yihiin in nimankan ay saxsan yihiin adduun iyo aakhiro ilaahay jeesjeeska iyo dadka lagu jeesjeesayo dhiigooda la daadinayo aakhiro adduun mid ilaahay wadi kaga jeebi doonaa taasaan sheegaa kheyre farmaajona waxaa leeyahay ama khudbad jeediya ama baydhabo ka dhac ama jabuuti ka dhac inta dadka soomaaliyeed inta waxgaradka nool yahay ama facebook waxgaradkaa jooga waxgaradka kuwa oo geedaha hoostooda jooga bas maa waxgaradka facebook ay joogaan twitter ay joogaan geedaha hoostooda waa fadhiya meelo badan ay joogaan waxgaradka intay joogaan farmaajo ama media xir oo lacagsi idaacadihii localka ahaa annaga halkaan aan ka sheegaynaa in dalka uu ku jiro marxaladii ugu xumeed abid soo marta Soomaaliya daaro ma san tahay waayahay idan Cabdullah farmaajo salaamaysa idin waa soo gelinayaa idin farmaajaan idin soo gelinayaa waxa weeye waxaad ogtihiin inay jireen kuwa caadaqaatayaal oo laaluush ku shaqeeyo oo farmaajo iyo groupkooda nabar in naxdin ay qiyaano qaran u shaqeeya waxa weeye walaalayaal halkan dheer baa la soo galay caawa habeen taariikhi hondooni inuu mahad celiyo kuwa soo halgamay mataqaanaa kooxdaasi waa laga suuliyey baraha bulshada nacamleeyaashii hal iyo laba ka haray beejkoodii hawada laga saaray brofeeladooda hawada laga saaray kuwii kale hunguri ku shaqeeyahay lacagtii laga goostay tira yar baa soo hartay oo hal iyo laba iyo saddex waxa weeye halkaas dheer baa la soo galay waxa weeye kooxdii mataqaanaa nabar iyo naxdin ee qiyaano qaran adduunyada waa ku ceeboobeen waxaa laydinka doonayaa halganka maanta noo haray waxa weeye hadda kadib waxaan bilaabaynaa
maqaallo warbixinno taxane ah oo mataqaanaa af ingiriisi ah ayaynu bilaabaynaa warbixinno joogto ah habeen kasto ayaan soo saaraynaa warbixin waxaan samayn doonaa ilaahay kuma samadiiday iimaylada ayaa waxaan qordoonaa safaaradaha dhan iyo beesha caalamka iyo cid kastoo qosayso kuwa xaqorsaanka hay'adaha kulliyaa loo dirayaa waxaa la sameeyey guddi habeen kasta update samayn doono warbixinada ingiliishka ayaa lagu faafin doonaa baraha bulshada Google World Newska la geli doonaa halganku halkaasoo hadda maraya inta badan kusoo guulaysanay shacabka Soomaaliyeed waa tusnay in aysan farmaajo kooxisa dawlad ahayn inay qiyaano qaran yihiin inay dawladda Muqdisho noqdeen inay haddana kadib soo yaraadeen inay marayaan dawladda wadada Maka al-Mukarrama halkaas inay ku soo aruureen inay amni ku fashilmeen dhaqaale ku fashilmeen inay soo celiyeen qabyaaladii kulli ma taqaana waa ku guulaysanay sidaas ay tahay anigoo aha qofkii 6 maalmood 8 maalmood gudahood ku mucaarad farmaajo ee arkay inuu yahay nin beenloo waxba aan gelin inuu yahay nin liita ah kadib waxaynu soo aragnay dhacdooyin fara badan colaado dhacay dad la dilay waxaanu aragnay in farmaajihii laga sugaayay madaxweynenimada uu walaashii la dhaltay ku hooyo ku aabbaha uu yidhi hala caayo oo yidhi waa waanta hala yidhahdo waa alkuusta hala yidhahdo waa dhilla hala yidhahdo wax kastoo xun ha lagu sheego waa walaashii hooyadii dhashay kaasi kama sugayno dowladnimo ka sugi mayno ninka walaashii gabadhu qaba heshiisiin waaye walaashii hala caayo lacag ku bixiyey dowladnimo ka sugi mayno waxa weeye ninka walaashii hala caayo mataqaanaa lacag ku bixinaya kaa dib heshiisiinka sugi mayno waxa weeye nimanku waa fashilmeen ilaahay waxaa mahadiistaa caawina habeen taariikhi joogno inuu habeen weyn ilaahay nagu simay habeenkaasoo ah in shacabkii Soomaaliyeed caawo macalkubi qabiil ku difaaci jiray ay caynayaan farmaajo qofku yahay ay aqoonsadeen waxaan rabaa inaan kow u mahad celiyo idil maxamed cabdullaahi farmaajo ma dhow qadka soo geli doono ee gabadhii ugu horeysay ee halgankan barakaysan ee kooxda qiyaano qaran tooshil wali finay ila bilowday iyadoo aan qabiil eegin iyadoo dhihin waa walaalkay inay xilli adag ila bilowdo qadka soo geli doona ma dhow saan ugu mahad celiyo caawo ta waxa weeye waa la jiro walaalayaal caawo ma ahan xasaasi kale ma aha waxa weeye waxaan u mahad celinayaa dhalinyarada Soomaaliyeed guud ahaan waxaan u kala qaadayaa gaar ahaan dadkii dhalinyaradii Soomaaliyeed waa qabiil qof kasto Soomaaliyeed qabiil way qabiil buu ka dhashay qabiilku muxuma qabyaalada xun waxaan u mahad celinayaa dhalinyarada beelweynta hawiye dhalinyarada gugundhabe gaal jecel samow ilaahay kuma simadin dhalinyarada shiiqaaleed dhalinyarada habar gidir dhalinyarada abgaal ismaan dhalinyarada murusada barkeed sida habar maxamed iyo habar idinle oo runtii garab weyn siiyey waxaan u mahad celinayaa dhalinyarada ilaahay kuma samadiidee waxaan u mahad celinayaa dhalinyarada beelweynta absame dhalinyarada dhulbahante dhalinyarada leylkase dhalinyarada warsangeli daarood warsan star dhalinyarada mataqaanaa ilaahay ortoble dhalinyarada gili kombe dhalinyarada waxaan u mahad celinayaa gili kombe dhalinyarada waxaan u mahad celinayaa faqashini oo iyaguna mataqaanaa habar gidir oo aad u halgamay waxaan u mahad celinayaa dhalinyarada habar awal iyo dhalinyarada garxajis iyo dhalinyarada carab ee beesha isaaq waxaan u mahad celinayaa gudubiirsho dhammaan waxaan u mahad celinayaa beelweynta ciise madoobe waxaan u mahad celinayaa ilaahay kuma samadiida dadka koofureed oo aan qof ka harin hawiyo mataqaanaa adu waxa laga yaabaa in yaro habar ceynaa inay iga hortimid laakiin inta kale safka dagaalka ila soo galeen waana ku mahadsan yihiin waxaan u mahad celinayaa ilaahay kuma samadiida beelaha digil iyo milifle oo raalli ahada idil farmaajo ka soo wacday WhatsApp-ka laakiin kalanka wacaya waxaan u mahad celinayaa dhalinyarada beesha maryaxaan gaar ahaan mataqaanaa ilaahay kuma inkastoo maryaxaan oo dhanba ay matalayso idil cabdullaahi farmaajo haddana dadkii ila halgamay ee ila soo gala markay dambe qadiyadan Soomaalinimada waxaa kamid ah beelaha Wagardhac iyo Eldeer iyo Celi iyo Reer Xuseen Siyaad ma qasaas oo igaraha la qaldo magaca ayaa dagaalka si bareera ila soo galay markii ugu dambeysay waxaan u mahad celinayaa beesha majeerteen oo iyaduna saacadihii ugu dambeysay xaqiiqsatay inay meesha dowladnimo oo ila soo gashay waxaan leeyahay waa mahadsantihiin halganku dashiishlaha kaalin weyn bay matqan ka qaateen waxa weeye waxaan ogaaday Soomaalidu in dad fiican yihiin oo yaqaanaan qadiyada waxaynu joognaa guul wajiga labaad ee dagaalkeenu wax bad ma ahane afkeenu ka hadlaynaa ayaa bilaaban doona hadday xabad tagtana dalka inaan ku xirayno ku qasbanahay la tuubi maayo waxaynu joognaa xilligii aynu gudi lahayn gudaha Soomaaliya waxaan sheegaa wixii bishtu ay ka dambeeyay inaan gudaha Soomaaliya u wareegayo tagayo oo aan meel yada Gilinsoor iyo calaado aan ka dhigan doono fariisin marka koowaad intaas shacabka u sheegaya marka
waxa weeye waan guulaysanay waan ka guulaysanay cadowga waan ka guulaysanay kooxdii way fashilmeen ilaahay kuma samadiiday madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Maxamuudna gudaha galaya Sheekh Shariifna gudaha jooga rag kale oo ma taqaana jiro oo soo halgamayna dhamaantooda wixii ka dambeeyay bishan gudaha galayaan waxa kala dhacay shirweynihii OLF oo asagana aan ka qayb geli doono haddii Ilaahay yiraahdo oo aan ka mid noqon doono xubnaha golaha dhexe iyo guddiga fulinta intii ma taqaana bal ay garto waxa weeye halgankan waa guulaysanaya cadowga waa la guulaysanaya ila maxamed Cabdullaahi Farmaajo qad ku jirto ila soo dhawow مدة سهل جنة إذا العاو هبيك جوشي نجوجنا بلقوا الحين وقوصة صقابلو أفرت أنت تقولون أخوي مال دولة هاي قول رجلنا قول يا خير برجلنا إيو تبتكليو إن وطن كلا إنه قصة فاري رجال كسياجن الله يورك هاي إنه حنكون شيء جاي داير على السوق وأرجع فيها تنقف معي أنه صومالي حتى أن هاي ملك السحجوبنو وعن مركز تكون منا تلكن إن النبتي ونحن نقول على تو أما النبت أي تلكن شعبيتنا أي كويسة لكن هذه تنقف معي تلكي وعاقب صدر الرج عند وناجا أو أهم الجسيالة تلكي يتلكي شعب كنا حسوق هاي تلكي إنسان يبدأ نقوها يصير نقوها قبل لا تدرس كنا قدام تدرس كنا نكتب كذا دعية وطن كنا بعاتي بعيد سيرنا وراءهم تأثير هتين نقطة كينيا هتين نقطة إثيوبيا شعبية الصومالية اللي حسوقها هي نسيجارة لو حسوقها شعبيتنا هذه اللي حسوقها الصومالية مركز واحد كوجاتان إن هذا خبره وهذا الكوميديان وكوميديون كشأن إلى هذه الكثير وأنا تقول ما هذه تذكر الله ينهايو تذكر الله ينهايو وجه الله دوبنا هي كاميرا لو قلنا هي بوكي ولا ترى هي لقى دوبنا هي أنت لو عقود واقعي أما شيء قبضي أكيد سوماليين يعيد مدي سوماليين وشرب قبض خير الطفل ويري معي هايتين سجاشن كبري صوت أبتين هذا صوت كلنا يا وحرب سجاشن كفوت ودينا تستنى أولي أتكسوتكتين مين يسولها تحاول سجاشن كبري أولي إذا حصلت هذا سجاشن كبري ما كنتشنا قبضي سنوات بقشارو علينا يا بكون عن هذا حيرك وقوع الجباية وريانو رئيس الوزراء واتساب وهذا شغل تساوي لعيسى وريا كفع باشا نكي كوي قامنا يا هادي أفتكر أنو رئيس الوزراء وحابة هاي تتعنى وفاقا أنو قصة رئيس الوزراء أنو رئيس الوزراء أنا ويابنا هاي وواحد عجيب وحاوي تاسان كان دحقليا إسلام hadday gabarnimo ku gaarto 6 sano idoo waligeed la guursan hadday nin hesho gabar kastoo ninkaas salaanta waxay u qabtaa in ma taqaan ninkeeda ay rabto marka waa iska qaylihe hadii ma taqaan waxay leedahay anoo ninkii hebel anagoo naagtii hebel uu qabay ah marka waxa weeye ninkaan waligii asaga reerkiisu ra'iisul wasaare ma noqon dalkaana wax kama noqon marka waa markii ugu horeysay saasa keenaysa hore soo waa islaam guur shadaawada guur heshay daas waa keenaysa tirada anagoo reer wasaare anoo ra'iisul wasaare halka waxaan aad aan ugu mahadcelinayaa ama aan taaniyad uga dirayaa madaxweynaha Djibouti oo loo aaday uu aaday khayr duufle inuu dalkeena ku soo gareeyo uu yiraahdo wixii macdanaya wixii maxay ahayd wadanka dhaqaalaha ama macdana aan rabaa inaan saxgalno Ismaaciil Umar Geelina ugu jawaabay anigu Soomaaliya wax dhaqaala iyo wax macdana iyo wax aan ka rabay ma jirto waa dalkaygii aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geele oo garabkeena taagan oo aabihi Soomaaliya ah وأنا ربي ذلك الصومالية بوب كذا عمو لا بوب هاي عم بوبيتو ذلك الشيء عم ذلك دريس كله بوب هاي أنا ديارو هاي ديار بنقول ما هذين هاي هذه الصومالية ديار بعد المركلة من وراء كان إنه هاي ذلك الصومالية إنه كم ديار أصلا ما هذين كده إثيوبيا يكيا waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waa maasantahay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo walaalka hooyada iyo aabaha ay dhaleen in uu yiraahdo walaashay hal aayo lacag ku bixiyo sidoo qalbigaagu soo noqday wallahi adigu qalbigayga aad iyo aad baan uga xumahay waxyaalo badan daahir cali soo waa duug ka dhicin baa ka dhacday wiilina dhashay aniga aabay hooyaday dhaleen oo aniga caruur hooyo naas way wada dugnay aabay Cabdullaahi Farmaajo digiisa dhacaad maanta kama filanay inuu lacag ugu bixiyo Facebook dad ugu qaylo yiraahdo caaya walaashay dilla yaa kartay alfisada wiilso faydiyo ومحجتنا دونك Soomaali maxay ahayd inay la yaaban tahay
aysan weligeed ka dhicin waxyaalo badanna waa la arkaa dikawsaas waxaad daliilaydiina nin dhan oo shalayto been intuu shacabkii soomaali u sheegay kutub jaamaca u maray shacbiyadii inta aamintay ugu soo baxday mas-uuliyaddii gacanta laga saaray dalban maantana uu noqday inuu noqdo wiil uhuri ah oo kaniisad galo kaniisad bil rabada iyadoo tahay uu galo kaniisad in la yidhaahdo madaxweyne kursiga madaxweyne waxaa soo daaba wiil uhuri uu leeyahay inuu yahayba markii anagu keyaaba naga leeyahay kaniisadna waa u galnayba bil rabada iyadoo tahay kursiga maray ku faliisiya marka waxa wey daahir cali sogow inigahaasoo adduun kama dhicin dad islaanaan nahay bil rabadaan ku jirnaa bil khayraa ku jirnaa maxaa kaniisadna geliyey maxaa inaan noqono wiil uhuri uu wiilkiisa yahay inaan noqono maxaa noo keena maanta na soo kalifay waxaa noo keena doqonnimada ninkaa kula dhashay waalan baa keentay magaca taariikhda soomaaliya oo lagu qoray in nin soomaaliya oo muslim madaxweyne soomaaliya ka oo kaniisad galo oo lagu qoslo kenyaanka ay ku qoslaan markuu hadlaba caqligiisaa siiyey hadduuba kaniisad diintii u galay asagoo magaca maxamedna wato muslimna ah maxay bir rabadaana hadduu ukala uhuri iyo kenyaati inuu noqdo wiil uhuri ah asagii caqligiisa taasaa idiin keenaysa marka soomaaliyay inuusan ninkaa nin jira ahayn taasaa idiin keenaysa in shacbiyadii soomaaliyeed lagu dul xasuuqo video rabaduba uu raalli ka noqdo taasaa idiin keenaysa in etoobiya ay maraakiib u soo iibsato iyadoona bad lahayn inay ciidanka badda iyo maraakiibihii badda ay etoobiya soo iibsato inay dadka soomaaliya badaheeda soo fariisato ay dadka soomaaliya qabsato marka waxaa idin leeyahay soomaaliyay dowladna ka jirto meeshaan waxa weeye niman canda wadaaga oo magafayaala waxaan idin leeyahay soomaaliyay hurdada inaad ka kacdaan weeraaskaboni waa inaad gacmaha qabtaan waa inaad gumeysiga iska horeysaan etoobiyana idiin socodsiiyo kenya in la kala qaybsado wadankiina waa forseel taasaan idin sheegayaa saar cali haya idin waa mahadsan tahay dad kale waxaan tusinayaa marka beejadkiiaan tusinayaa beejadkiiaan xabad in tusinayaa beej kasta oo nimankaa nabar i naxdin kooxdaas lacagta ku bixin jirtay waa la xiray kubii aan lacagta la sii jirinoo meelaha iyagana balowd ahaan u ahaydna shaquur maade iyo calas soo taqaanay oo reconference leedeen af kasta social media anaa lagu xama jirin lacagna la siiyo waa kana markii la dhisay duqbilow fiiriya jabkiisa uu sheeganayaa in dagaalka looga adkaaday ayuu qarinayaa afkiisa madaxweynahan uu soo dagaalamay iyo balkaleeto oo anigu aanan arrintaa aad u aaminsanin laakiin madaxweyne ka yahay waxaa dhisay nin dowladda federaalka kumeelgaarka markaa ka tirsanaa oo wasiirka gaashaandhigga ahaan jiray soomaaliya caalamku magaran horta qiiq baa dhici doona qiiqaana somaliland waxay ku bixinaysaa biile naara too much puntlandna way kiciye qabiilkaasike wiyaa nabadii nolol shamtin maskaxdaada ee u baahanta inay qaato ee la gaarsiiyey yay ka qarxleen aadi dhegeyso allah muxuu la qarle war waxbaan akrinaa akhreen oo wikileaks galow sajgad duqbilow samaroon iyo ciise beesha caalamka iyo qadiyadii mabdaa noqotana nin calanka buluuga aaminsan bana hawiyow ismadax jaalla hawiyow nagu dhiig baa idin naga dhexeeyo jaalla hawiyow hadda kuwa shalay ka shakinay localka oo kale dhan waa wada xanaaqaysaan irka ka xanaaq boos dhan buu sii ogaa boosasoo hay xanaaqina macnaha hal sano ka hadda kahor baniri horta xabadii markay korolaatay oo dawlo goreynaya dacwa seef goreynaya dacwa soo geliyaan oo xigsanba soo geliyay kasan leeyahay madax ra-iisul wasaare aniga duqbilow annaga hadlayna mugta iskuol ku faafaanay arkay oo dhahayo waxbaan xirnay waxaan looyaradan hadda u dirnay waxa markay soo dhammaato programku soo dhammaado adeer caddeemaheedii saxdeeda imaanaysa maasha allah marka waxba taas kusii tegi maayo intaan kasii hadlaynaa nala caburin maayo soo dhawaada geeya beejiska kala geeyo meelaha gegeynaysan geeya aad iyo aad maasha allah aad iyo aad waa idiin salaamaya ramadaan kariim todobankii dambeetay bisha ramadaan baa lagu jiraa aniga wiilkayga yarka oo kaa xaggay saaran ma dhiga ninkan mogti ninkan ma dhigo sababto ah raasmiga hadda u sameynaya waxaan rabaa dalka soomaaliya inuu xoqdaan rabaa aabahay soomaaliya u dagaalami jiro mogta aab calanka soomaaliya u dagaalami jiro mogta maasha allah soo dhawaada sii gudbiya aad iyo aad inta laga baranayo waa inaan idinku celceliyaa sheergareeya oo sii gudbiya maasha allah saaxiibadeeda kaletana waan salaamayaa
من مقرن عبد السلام جنتلمان بوندري everybody أصحابتنا والسلام يعني وأنا سكدل القادن إن الرالي النقطة أنا جوا السواد كي عبار بن سوجفي جواش أنا وين في ذي مركز دم عليه هذا وحجوير وأن سكدل القادن إنه وأنا سلقرنا وحبا وحنا قاعد ميشو بوندري إنه وحويا وهوش سوسكوتا هذيان عبد السلام إنه وش سوسكوتا وأنا دولتنا ودفاعنا وانا صون غندنا ان شاء الله دولار وانا برينا ددكو وانا برندونا كلبا الا انغا ويا وحي هلجر انيغا دقبلو انغا هليني ممكن ستيل توك ونسي هلي دورنا ان شاء الله هذه marka bil ramadaan baa lagu jiraa waxba inaan dambi badan iga tag maro laakiin xaaladu siyaasadeed iyo geeska Afrika ma sha Allah beejka like saar follow gare شي شرقري شي قدبي كعمها كدال مقرس هذه هبق ليش جروب يقولون كان جيجانتو ويتشدين قام بكو قارب because of عذكر ما يستان موت والله بين ما من عذكره وهاللي يقانو وشعبك هذا تقبله وكلته وعذكر وي والله موت وسوق ريا confidence يسوق بقى وح وربا إنه شجوا أيو شيء وسوق السوية معناه كالسوريدو وسلف حتى كوربا دي شيء يدير مكتب ماشي وحسلف كونفدنس اللي هو والسوشيال ميديا كاش غير مكتب هذه كونفدنس كاس وحاويه وانا كالسوريس وخبط حريها وانا هل كرتيب وانا بقولي كنت بهذه دوله ماشي كل سنه بقولي كنت كنا بدوريا هذا الشد وين مكتب هذه ما شاء الله مركا يقعد كرما حنوك جالسيني حسوينيان حقيقه دبته لعقتي كده مانتي بيت والبو يحكوا حريان العق والله هذه هذو تربضن مركا إمرأة كان عندك الله بالله تالله متى كلنا وايد كده يا دليرتا جروب كيجي أنا نيجي حتى كده دقاقي هون شير جري كويس هذه دقيش فيديو يرك لايف كان سوق لان لايف فيديو ده من السوق اللي مرة سوبتا فيديو يرى هل فيديو بابلر جيم كل السوق هذه يديش يقعد يقرعني موت فيديو ير أنت أنا توبي قلقلين حيوان نقول غير رأي كسرنا واقي رسنين وحنا الريالة به موت والله وحنا الريالة به أبو happy birthday to you happy باقتين أبو وأنا ذكرنا وأنا نسي شكسرنا ماشي فيديو وير أما فيلا الصومالي كسبحوا أما كسبحوا إيش الله مستعان بابولار كتولد الصومالي أم واحد والقاعدة دي مشي أنا قلت أقدر رابح يا وكرجس كرسنا داسوا كوسو حوق جل فيديو قاعد دع لسيسنا ولا رجس كرسنا كا حلقوا رجس كرسنا يا ويب سايت كاس أسكرت فيديو أنا حسكرت دولة أسكرت أنه غير جبان غير جبان يا الدولة غير جبان من قلت معنا وقير السنة سؤال جاي حد أرجع سجح هذا مكتب فيديو يوم حولها إنه كان لي أركنا مدن محمد عبد الله فرماجو أم رئيس الوزراء حسن علي خير وكان لايك فيديو دعوة دولة قرينية دعوة سيف قرينية دعوة سوق اللي نروح يقسم بالسوق اللي مكت كسر هاي مدن رئيس الوزراء حسن علي خير وصوص فيري فيديو already قلاب كوبرك استوى أعوذ بالله من الشيطان حب الله يسو وعاوي دقبلو أي هذا فرت البيت كقبصر ولا جحري أمريكا ولا حري فيوتر ولا حري محيها بالكا قلم ولا حري بالكا قلم ولا حري بروفيل ولا حري ما كست ولا جسر حري نبكي هذا ما تقنا من قلي أصلا ما فهمتين waxa sameeyay waa wiilasha habqlaysa group waxa leen noolaada waxa way waxaynu galnay taariikh ayaynu galnay runtii been sheegmay taariikh ayaynu galnay ninkasto bishii dhaweeyta la hadlay kooxda waxa la yiri oo beed bamali oo Facebook ay ma shaqeynay lacagta maxaa kugu siinaa war hebel lacagta maxaa kugu siinaa maya daahir calaso oo mintiina soo boqol qof habqlaysa group ka adkaataa wax jira ma tiidin marka waxa way halgan baa socday halgankii marka la dagaalamayna labada kooxees hay qolo u baa guuleysanay marka anagu inta sameeyirna waa sameeynay waanu guuleysanay waxay ku bishaaraynaya laba nin baa dhiman labadaas waa baxya ana idin sheegayo
labaas waa baxaya sababtoo waxa sameeyeen dhan ilaahay xaqiisa ma taqaanaa aan u sameeyna ajiraan ka rabnaa xasraadaan ka rabnaa waxa aan sameeyeen dhan ya ha mid xiro maaragtay bidaan madax yeerno la soo maaragtay wax xiriina fiirsada ana ku sheegay beertan galeeyna wax uu sameey kara male looyir ingiriis shaqada la wado wax uu sameey kara male waxyaabaha sameeyo dhan qaladkan waa lagu qabsanaa ha waxa way blueskan ka report galeynay hay'adaha ka report galeynay dadku ka been sheegay darada ugu dambeysay wiil maskiina oo yaro saqiir oo 2 sano 3 sano jiro soo galiyo leeyahay marka yaraasas oo ka jira saqiir ku jeesjeesaya marka qadiidaas mar wada aan si ka shaqoolayga aan wato laakiin waxa ay sheegaya wax weyn baa isbedelay wax weyn baa ma taqaana aad ogtihiin in maanta dalka maanta social media inuu gaaray inuu calo Djibouti ka calo qayqlaaw annagu iib manihin waxay ku dhaaranayaa waa wallahi waa billahi waa tallaahi inaan qof bini aadan iibsan karin dhigshira adduunku uu lacag badnaayo ima iibsan kara waliina ima iibsanayo iska dhaaf waxaan kala ka sheekeynaysa wax jira ma ah waa wallahi waa billahi waa tallaahi inaan nala iibihiin waxaynu u dagaalamayna qadiyad iyo gobonimo waana ku guuleysanaynaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee soo halgantan waxaan leeyahay hadduu Ramadaan noo furmo hawl baa noo bilaabanayso meel baa isugu tagaynaa dal geeska Afrika ku yaalo ayaa isugu tagaynaa aniga tigidhina casuumaadii wixiina dhan ma taqaanay meesha maleyseen iyo jihooyinkiina waxaynaayo halkaas aan nooga furmaayo shir meel walba ma taqaanaa gobolada dalka ana waxaan ka furaynaa xafiisyo hawl xoogana socota haddaan rabno arrimaha saxaafadda meel baan dhigaynaa gobonimo u dagaalamayna Ethiopia laga baqi jiray ma joogto Ethiopia way dhamaatay Ethiopia filinkeedu waa gubtay waxa weeye Ethiopia ilaahay kuma samadiiday xabashidu oromadii waa la sii daayay amxaaradii waa la sii daayay maxaabiista hogaamiyaashoodu waa la sii daayay xaquuqdoodu way heleen maanta waad arkaysaan in Addis-Ababa laga caynaayo Cabdi Ilay waa arkaysaan xorriyadda soo socota waa arkaysaan kuwa Soomaalidu baa xabsi lagu sii wadaa waana ka daba tageynaa wax xabsi iyo wax walwala male wax xabsi iyo wax walwala male maxaabiisteena waa helaynaa dad gabdhaheennuna xorriyad bay helayaan gabar la kufsado waxa weeye dhulka Oromiya lagu kufsado dhulka qaar kufsado dhulka Soomaalida maxaa gabdhaha loogu ceejinayo loo kufsanayo waa inaan ka hadalnaa haddii qof Soomaali tahay waxaynu soo qabno waa noo gooni dhexdeena laakiin qadiyada guud ee lama taabtaanka ee Soomaalinimada waa inaan u halganaa waa in gabadha Soomaaliyeed ay sharaf ku laafiyo caalamka waxa ayaa keenay waxa keenay dhalinyaro Soomaaliyeed keeni karto adduunka arkis waxa laga baqay waa dhalinyaro 170 kana dalka arkis xorriyadda ka jirto dhalinyaro keentay ama ha u dhintaaneen waxa weeye waa ogtihiin dhulka hadda ay sheeganayaan qolooyinka ma taqaanaa ee jeegaanta ay sheeganayaan ee Sool iyo Sanaag waa ogtihiin rag xorriyay gaw Soomaaliya ha noolaato ha israacdo ha biqlayso hawshan ha socoto nimanka hala soo afjaro xaniyahaas ilaahayna aamina xaniyihiina kaashada ogaadana wax kasta oo aad ku fikirto oo aaminto ya mar waa ku fashilmi kartaa mar labaad waa ku fashilmi kartaa mar saddexaad waa ku fashilmi kartaa laakiin fashilkaas kugu micnaheedu ma ahan inaad ku niijabto waa inaad halkaada ka sii miistaa ilaa ma qadiyadaas aad aaminsantahay aad u dhimataa ya qof wax kaa qaadi kara male haddii inagoo ku jirno halganka iyo qadiyadan ku jirno oo magaca Soomaaliyeed ilaalinayno oo cadaalad falayno oo been sheegay ya ana hadda Muuse Biixi iyo Cabdiweli Gaas dad ahaan Muuse Biixi ay xiga laakiin mar rabo aniga dhanka mari san ka qabsanaya mar rabo waa nin xun dadkiisa dila oo beenlow ah oo macaangiga mar rabo aniga cadaalad darasna ka qayb galo Cabdiweli la jira maxay Cabdiweli waxa diriya Cabdiweli calankaygu sitaa Cabdiweli ma taqaanaa magaciyan wadaagnaa deegaanaan wadaagnaa ilaahay kuma samadiyo wuxuu difaacayaa dad ay gadaran yahay anigu ee walba taariikhiin la dhigi jiray daahir dhul bahante magacaas ay dhigi jireen boqolinkii ugu yeerjeen idurka daahir dhul bahante wali waalid dhul bahante ayagu waa arkaysa xalaq alif xagga tag maalin xaggarow ka quraaco habeen kale ka cashay anu laakiin sida u soo taagnaa qadiyad qaatuma isaga dhigana SSC aska ajiri hadda qaatumo aska ay ma fahamta qadiyadiida xaggan u laabama ilaahay qeyrkana waafajiyo ilaahay qeyrkana waafajiyo ilaahay soonka iyo salaadaha naga aqbalo la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
اللهم صل على سيدنا محمد إله وذا أود له أذا أود له شرعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.